Assalaamu calaykum. Waxaan muuqaalkan kugu soo bandhigi doonaa 9 shay oo aad garanay faa'iidadooda ee daawasho wacan. Laymanka ama xariijimaha gacmaha dadka kaga yaala. Waxay dadka qaar badan oo kamid ah aaminsan yihiin in laymanka dadka gacmaha kaga yaala ay ka caawiyaan inay saadaaliyaan oo ay akhriyaan mustaqbalkooda. Waana fikir khaldan. balse haddii dhan aqooneed laga eego xariijimahan waxay ka caawinayaan gacantaadu inay kala baxdo ama laablaabato waxaana sidoo kale laga gartaa badh ka mid ah xaaladaha xanuun ee qofka haya waxaanay ku dhigmaan xariijimahani gacanta markuu ilmaha yari ku jiro uurka hooyadii 3 bilood ee ugu horeeya waxaanu dhashaa cunug isagoo leh xariijimahaas halka sidoo kalena ay ka caawinayaan inaad wax ku qabatid gacanta taasina waa sababta ay xariijimahani ugu yaalaan farahaaga 2 daloolada dheeraadka ah ee kabaha waxa lagu sameeyay dalooladan kabaha buurka ah si xarkaha loo geliyo kabtuna cagta u leekaato inaad aragtina mooyee kabaha qaar baa daloolo dheeraad ah ku leh hareeraha iyagoon qurux kaliya u ahayn kabta balse waxay caawinayaan dadka cagaha yaryar inaanay kabtu ka siibsiiban halka ay sidoo kale canqowgaaga siinayaan taageero gaar ahaan markaad ciyaarisid ciyaarta basketball-sha falaadha yar ee ku taala meesha baatroolka gaariga laga eego miyay mar ishaada ku dhacday falaadhan adigoo gaari wada dabadeedna aad isweydiisay maxaa lagaga soo dhigay falaadhan meesha dabcan waxay u taalaa meesha si ay ku xasuusiso dhinac uu ka xigo taangiga gaariga lagaga shubo shidaalka sida awgeedna ha istaagin dhinac khaldan haddaad doonaysid inaad gaariga shidaaliso dhibicda madow ee ku taala telefoonada iPhone-ka dhibicdan dadka badankoodu garan maayaan shaqada ay qabato sida ay ugu soo tala galeenna waa microphone ka saaraya codka shuuqa tusaale ahaan waxa uu ka dhigayaa codkaaga kaleer markaad qof la hadlaysid halka ay sidoo kalena cod safeexa ku duubi karto daloolka yar ee ku yaala DVD-yada mararka qaar ma ku furmi waayaa badhanka lagu furo DVD-gu ama ma ka xumaadaaba haddaba isticmaal xeeladan ugu horreyn dabka ka dami kombiyuutarkaaga soo qaadana irbad ama shay dhuuban kadibna ku taag daloolka yar ee DVD-ga agtiisa ku yaala isla markaabana uu furmayaa dhinaca qalqalooca ee tinqabtaha ama biinka kaba soo qaad inay wada toosan yihiin labadan dhinac ee biinku sidaana waxa sahlanaanaysa inuu biinku ka baxbaxo timaha sidaa awgeedna inuu lahaado dhinacyadan qalqalooca waxay u tarayaan inaanu biinku ka dhicdhicin timaha daloolada hareeraha kaga yaala dusuudda dhariga haddii weelka aad wax ku karsataa leeyihiin dhinacyadan daloola taa macnaheedu waa inaad heshay meel aad ku dhowrsan karto malqaacadaada nadaafad ahaanna u wacan hana dhigi meel uskaga malqaacadaad ku walaaqaysid cunnada kaliya geli malqaacadda meesha daloosha madaxeedana ku beeg bartamaha dhariga waxaana sidaa ugu dhacaya wixii raashin ahaay ee malqaacadda ku hadhay sidaasaana nadaafad badan badhimada yaryar ee jawaabka surwaalka ku yaala haddaad leedahay surwaal jeemis ah waxaa laga maarmaan ah inaad badhimadan ku aragtay surwaalkaaga haddayna ku noqono waqtigii la sameeyay saraawiishan jeemiska ah waxay shaqaaluhu u xidhan jireen si joogto ah saraawiishana in badan may xidhnaan jirin oo way badbedeli jireen waayo surwaalku uu ka fagmi jiray sidaa awgeedna waxaa lagu sameeyay badhimadan birta ah si aanu surwaalku u xoqoqmin ugana ilaaliyaan inaanu diirku ka dhicin daloolka ku yaala malqaacadda baastada waxay moodaan dadka qaarkood in daloolkan looga saaro oo looga sifeeyo baastada biyaha laakiin sababta dhabta ahi waa inaad ku qiyaasatid xaddiga baasta aad karsanayso